Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Akhyaarey caruure sidaad horeybay igu baratay markaad i aragtaa inaan wax idiin sawiro waxaan idin wadaa wixii hore wax ka bedelan. Marka waxaan idin wadaa sheeko xariiro. Sheekadaas oo aan filayo inaad ka heli doontaan si aan adinkaba uga helay. Sheekadaas oo ah lax iyo ri. Haddan waxaa bilaabaneynaa sheekadeeni. Beri baa waxaa wada deganaa lax iyo ri, waxaanay wada lahaayeen guri qurux badan. Maalin ayaa ridii iyada oo gurigoodii ka socota waxay aragtay mas oo aqalkoodii ka soo baxaya. Ridii way carartay iyada oo naxsan. Markaasay ku tiri laxdii, waxaan arkay mas aqalkeeni ka soo baxaya. Laxdii baa tiri, i tus. Markaasay israaceen ayay tustay maska oo aqalkoodii oo fadhiya. Maskii oo gurigooda albaabkiisa fadhiyo oo rabo wixii gurigoodii soo gala inuu cuno. Dabadeedna way ka carareen gurigoodii. Waxay u tageen daanyeer dhex jooga beer moos ah. Markaasay ayay ku yiraahdeen waxaan u baahanahay cunto iyo biyo, guri aanu seexano. Daanyeerkii markii ay u sheegeen dhibaatada oo ku dhacday, aad ayuu uga xumaaday oo wuxuu u keenay cunto iyo biyo. Markii cuntada ay iyaga dhammaysteen, wuxuu geeyay guri qurux badan oo uu ka sameeyay caleenta mooska ah. Waxaan ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan ee uu fidiyay. Daanyeerkii wuxuu yiri, gurigan aad caawa seexanaysaan idinka ayaa iska leh laga bilaabo caawa. Dabadeedna wuxuu ay weydiistay in ay la joogaan si ay isaga weheshadaan wixii soo weerara. Sidaas ayay saddexdoodii ku saaxiibeen. Caruure mahadsanidin. Share, like, comment, subscribe waa xageen. Waa ku mahadsantihiin daawashadiin.